بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناسن داود إلى صاحب يا الملك سوا جوجتان بكسر دوادا جنال كدلج الميديا نيجونا محمد حسن محمود أتدير maalinimo wanaagsan ayaan leenahay waa 20ka bisha October sanada 2021 waxaan mar kale idinkaga imaanaynaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga inagoo isla falanqeyn doona arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya maanta qodobka aan rabo inaan idin la wadaago ayaa waxa uu ku saabsan yahay taliyihii hore ee ciidamada KDF ama ciidamada difaaca ee dalka Kenya ninka lagu magacaabo Julius Krangi oo xogo badan oo ka qarsoona indhaha caalamka gaar ahaan Soomaalida ka shifay kadib markii waraysi uu siiyay qaar kamid ah warbaahinta dalka Kenya ku saabsan xaaladaha ammaanka ee dalka Soomaaliya iyo sababihii ay Kenya markii hore u gashay iyo halka taageerkeeda uu ahaa ama qorshaha markii horeba Kenya ay ka lahayd markii ay Soomaaliya galeysay iyo hadda oo ay labada wadan khilaaf ka dhaxeeyo waxa Kenya uga qorshaysan ninka lagu magacaabo Julius Waweru Krangi waa taliyihii hore ee ciidamada difaaca dalka Kenya waxa uu hadda yahay howlgab ama shaqo ka fadhiisan ama retired hadba sida uu taqaanid oo ka fariisay shaqadii militariga waxa uu wali ka tirsan yahay waaxda militariga laakiin ma ahan taliyihii hogaaminaya ciidamada laakiin waxa xilkan taliyaha ciidamada difaaca Kenya loo magacaabo sanadii 2011 ilaa 2015 waana markii ciidamada difaaca dalka Kenya ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Jubbooyinka ee Jubbaland ee la isku wada yiraahdo Julius Krangi oo waraysi siiyay qaar kamid ah warbaahinta dalka Kenya ayaa kaga sheekeeyay sababihii markii hore Kenya ay u gashay dalka Soomaaliya iyo ujeedooyinkii ay ka lahayd markii ay Kenya gudaha u galeysay Soomaaliya iyo sababihii ku kalifay in ay qabsadaan magaalada Kismaayo Julius Krangi oo arintan ka hadlaya ayaa waxa uu ka sheekeeyay markii hore sida ay ku bilaabatay qorshaha ay Kenya Soomaaliya ku gashay waxa markii hore warbaahinta Kenya ay la wadaagtay ay ku sheegtay in ay Kenya Soomaaliya u galeyso sabab la xiriira ammaankeeda iyo ururka al-shabaab oo faragelin ku sameeyay gudaha dalka Kenya oo afduubyo ka sameeyay deegaanada xuduudda ku yaala weeraro ay ka geysteen magaalooyinka Kismaayo iyo deegaanada ku xeeran magaalada Mandera iyo deegaanada ku xeeran sababta ay markii hore Kenya ku sheegtay in ay Soomaaliya u galeyso balse waraysigan Julius Krangi uu bixiyay ayaa waxa uu ku sheegay in arintu ay taa ka duwaneed isla markaasina waxa uu sheegay in Kenya dooneysay in ay soo qabsato magaalada Kismaayo oo ah magaalo istiraatiiji ah isla markaasina xeeb ku taala oo dekadna ku taala sida hadalka uu dhigay Julius Krangi waxa uu ka sheekeeyay taariikhda magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubbooyinka ee Jubbaland la isku yiraahdo iyo gobolka Waqooyi Bari ee ka tirsan dalka Kenya iyo sababtii ay Kenya gobolkaas uga soo biiray taariikhda la wada og yahay ayaa waxa ay tahay in markii gumaysigu uu haystay labada dal Soomaaliya iyo Kenya waxa xornimada hor qaadatay Soomaaliya 2 sanadood ka hor Kenya iyo Soomaaliya xornimo qaadatay oo ka qaadatay Ingiriiski waxaana maxaa Talyaaniga ka qaadatay xornimadeeda araade Kenya waxa xilliga gumaysanayay oo gacanta ku hayay dalka Ingiriiska oo deegaana oo ay u ahayd deegaan ama waxa gumaysanayay Kenya xilliga dalka Ingiriiska 2 sano markii ay Soomaaliya xor ahayd ayaa waxa afti laga qaaday dadka gobolka Waqooyi Bari degan ama NFD halka la isku yiraahdo Northern Frontier District waxa la isku yiraahdo marka NFD waxa ka jirtay dawlad la leeyahay jiray NPPP oo magacnaha fadhigeeda ama xarunteedu uu ahaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya oo la jiray Northern People's maxaa la yiraahdaa Party halka markay mareysay afti ayaa laga qaaday marka dadka reer Waqooyi Bari ama gobolka Waqooyi Bari dadka degan waa magaalooyinka hadda county-da loo yaqaano Wajeer Mandera iyo Garissa ayaa waxa laga qaaday afti ku saabsan ma waxaad ka mid noqonaysaan Kenya markii Kenya xornimada la siiyo 1963 mise waxaad ku biireysaan Soomaaliya maadaama aad Soomaali tihiin dadka halka degan oo kaliya ma wada ahaan uun Soomaali waxa degan Soomaali iyo qowmiyado kale laakiin tiro yar oo aan aad u badnayn dadka halka degani waxay u badan yihiin 85% dadka NFD degan waxay u badan yihiin muslimiin gobolka xeebta Tana River gobolka la yiraahdo iyo gobolka Waqooyi Bari waxa degan dad 85% muslimiin ah inta ka soo hartana waa in yar oo maxaa la yiraahdaa aan muslim ahayn oo diimaha kala haysta afti ayaa laga qaaday waxa la weydiiyay waxaad ka sii mid noqonaysaan Kenya markii xornimada la siiyo mise waxaad ku biireysaan Soomaaliya 63% waxa ay u codeeyeen inay Soomaaliya 68% waxa ay u codeeyeen inay Soomaaliya ka mid noqonayaan sababta Julius Krangi waxa uu ku sheegay inay yihiin dadka u codeeyay dadka muslimka ah iyo dadka Soomaalida ah
oo boqolkiiba sida uu ku sheegay boqolkiiba 68 ah inay u codeeyeen inay ka mid noqonayaan dalka Soomaaliya maadaama ay Soomaaliya boqolkiiba boqol islaam ay tahay Kenyana diimo kale ay ka jiraan islaamkeedu boqolkiiba 15 kaliya uu yahay marka lagu daro gobolka waqooyi bari waliba marka gobolka waqooyi bari kuma jiri Kenya halka markay mareysay oo Kranji shaqada uu ka sheekeeyay ugu uu markuu shaqadan background-keeda ka sheekeenayo ujeedo kale ayuu ka leeyahay oo waxa uu rabaa inuu ka dhaadhacsiiyo dadka halkan degan iyo sababta Kenya ay u rabto inay ilaa Kismaayo u soo qabsato oo ay Kenya xilligan ugu soo darto ayuu rabaa inuu ka dhaadhacsiiyo bulshada marka la hadlaya oo wareysiga uu bixinayay halka markuu marinayay waxa uu sheegay boqolkiiba 32 ka soo hartay waxa uu ku sheegay in dadka Kiristaanka ee dadka deegaanada gobolka Waqooyi Bari degan waxa uu sidoo kale sheegay oo maxaa la yiraahdaa wareysigiisa uu ku sheegay in ilaa ya Kismaayo deegaanada Jubbooyinkaasi ay Ingiriisku ka talinayay xilliga waa sida halka uu wareysiga uu dhigay taariikhda markuu ka sheekeeyay oo ballaarneyd oo dabcan haddii aad doontaan aad YouTube-ka ka baari kartaan wareysiga Julius Krangi uu ku bixiyay ayaa waxa uu soo gudbay marka 2012 markii la gaaray buu wuxuu yiri waxa ay Kenya go'aansatay in ay maxaa la yiraahdaa markii weerarada shabaabna ay bilowdeen oo inta badan Soomaaliya shabaab uu qabsaday waxaan go'aansanay buu yiri inaan magaalada Kismaayo oo soo qabsano oo aan ciidamadeena geeyno oo maamulkeena aan geeyno sifa maxaa la yiraahdaa ay gacanta Kenya ugu soo laabato waa sida halka uu dhigay halka markay mareysay buu yiri waxa dhacday in AMISOM oo horay uga howlgalisay Soomaaliya ay nagu qabsadeen howlgalkeenii ismarkaasina ay yiraahdeen waxaan ka dhigaynaa howlgal AMISOM ah ismarkaasina waxaad ku soo biireysaan AMISOM howlgalka AMISOM oo mandate cusub sida Kenya lagu siiyay sidii ay Kenya mandate-ka AMISOM ku qaadatay kadibna wuxuu yiri shirar ayaan wada yeelanay howlgaladii AMISOM sektaradii Uganda iyo maxaa la yiraahdaa Ethiopia iyo Burundi oo markaa wadanka ku sugnaa Soomaaliya ku sugnaa oo ciidamo ay ka joogeen waxaa la go'aansaday buu yiri in la qaybiyo howlgalka oo sector laga dhigo waxaan ku doodnay buu yiri in aan Kenya kaligiin howlgalno oo aan la ku darin ciidamo kale oo talaftigeedu waxa ka dambeysay qorshe weyn oo ballaaran in Kenya ciidamadeedu kaligeed howlgalaan oo aysan ciidamada AMISOM la howlgelin oo aysan maxaa la yiraahdaa hosting taliska AMISOM oo ay kaligood talis gaar ah noqdaan sector 2 ay markaa maxaa la yiraahdaa la bixin ciidamada Kenya ee AMISOM markaa ku howlgalayay waxa ay naga soo gaaray buu yiri khasaare fara badan sida uu sheegay 33 askari ayaa howlgalka kaga dhimatay waa sida wareyskiisa uu ku bixiyay marka laga reebo uu yiri maxaa la yiraahdaa siyaabaha kale iyo dhimashooyin kale iyo khasaarooyin kale 33 askari baa nooga dhimatay buu yiri weerarka foolka ayaa shabaab aan la galnay kadibna waxaan gaashaanka u daruurnay buu yiri ama iska diidnay in aan taliska AMISOM si isku milan ah wada howlgalno tusaale ahaan in ciidamada Kenya iyo ciidamada Uganda la isku dhafo ama ciidamada Kenya iyo ciidamada Ethiopia la isku dhafo ay iyagoo wada jira ay howlgalaan ayaan diidnay buu yiri anagoo kaligeena ayaan howlgalnay waxaa la dagaalamayay oo la howlgalayay ciidamada Raas Kaabon la oran jiray oo Axmedoobe uu hogaamin jiray madaxweynaha xilligan Jubbaland ka ah sida ay maalintii ka dambeysay ku turkayeen oo diyaaradaha dagaalka Kenya iyo gawaarida gaashaaman ee Kenya ee isticmaalayeen buu yiri waxaa noo suurto gashay buu yiri inaan ilaa magaalada maxaa la yiraahdaa Kismaayo qabsano magaalada Kismaayo markay qabsanayaan ogow oo xuduudii badda ee la isku haystayna waxay soo maraysaa dhinaca Kenya hadii magaalada Kismaayo ciidamada joogaan dabcan iyaga ayaa maamulaya sida haddaba xaaladdu ay tahay ciidamada badda Kenya ilaa iyo xeebaha Kismaayo ay joogaan iyagoo qiil kaga dhiganaya waxaan dekada Kismaayo ka difaacaynaa al-shabaab oo doomo ku soo weeraraya kadib waxaa jiray qandaraasyo dawladda Kenya ay la saxiixatay kambaniyada shidaalka soo saara ee ugu waaweyn caalamka oo ay kula saxiixatay inay shidaal ka soo saaraan xeebaha ama goobta la isku haystay ama badda halka la isku haystay in ay ka soo saaraan shidaal qandaraas ay Kenya la gashay lacago fara badan ayay qandaraaska iskula gashay oo qaybo waliba horumaris kaga qaadatay taas ayaana kalifaysay buu yiri inaan qasab nagu ahayd buu inaan soo qabsano ilaa magaalada Kismaayo soo qabsano sifa howlgalkan shidaal qodista uu halkeedii kaga sii socdo dabcan Julius Krangi wareysigiisa oo aad u dheeraa waxa uu faahfaahiyay ama uu kashifayba sababaha rasmiga ee Kenya ciidamadeedu ay markii hore u galeen Soomaaliya in ay tahay shidaalka halka ku jira iyo in ay tahay ilaa magaalada Kismaayo dekadeeda in sida u soo qabsadaan ismarkaasina mustaqbalka dhow sida hadalka uu dhigay ay Kenya ku soo biiriyaan ilaa magaalada Kismaayo ama deegaanada Jubbaland isku yiraahdo waxa uu sheegay gobolka Gedo inuu xuduud balaaran la leeyahay magaalada Mandera ama county-ga Mandera xuduud balaaran uu leeyahay dadka degan wuxuu yiri dhinaca Soomaaliya ee dadka degan dhinaca Kenya waxa la yiraahdaa waa dad isku mid ah ayuu sida halka u dhigay waa dad isku hayba ayuu isagu ula jeedaa marka waxa uu qiildayaa in dadkaasi ay ku soo biiraan dadka Kenya
waa sida adalkiisa marka la dhuuxo nuxurka ka muuqatay. waraysigaas oo dhammaystiranna waxaad ka helaysaan barta youtube-ka oo aad haddii aad magaciisa ku qortaan Julius Karangi waad idin soo baxaya waad arki doontaan. isku soo duuduub oo maxaa la yidhahdaa weli istaraatiijiya cad ayay sida muuqata Kenya istaraatiiji cad ama qorshe cad ayay ka lahayd gelisii Kenya ay gelaysay. xilliga Kenya ay gelaysay Soomaaliya waxaa xusid mudan ciidamada Kenya waxaa wasiirka difaaca ahaa alaab naxariistay senatarkii ugu dambeeyay magaalada Garissa Maxamed Yuusuf Xaaji oo maxaa wasiirka difaaca ahaa oo ciidamada awaamirtooda bixinayay. sidoo kale Farax Macalin waxa uu ahaa afayeen ku-xigeenka ama gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee dalka Kenya iyo xilligaasi ahaa. dabcan xilliga waa ugu qalacsanaa Farax Macalin laakiin hadda waxa moodaa fikirkaas ka duwan inuu qabo. isku soo duuduub oo waraysigan uu bixiyay iyo xogahan uu bixiyay Julius Karangi taliyii hore ee ciidamada difaaca dalka Kenya waxa uu ku soo beegmayaa xilli dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo khilaaf baan ka dhaxeeyo ilaa iyo dowladda Kenya ay ku hanjabtay in ay dagaalkaasi gacan ka hadal u bedeli doonto oo ciidamadeeda difaaca adeegsan doonto. ugu ciidamada difaaca Kenya horeyba waxay ku sugan yihiin dalka Soomaaliya marka dowladda Soomaaliyeed ilaa hadda kama soo jawaabin arrimaha hanjabaadaha. waxa ay Kenya mar walba ku doodaysaa in wada hadal laga gala arrinta keeska badda oo lagu dhameeyo midowga Afrika wada hadal ay ka galaan oo gogol wada hadal isugu yimaado sifo maxaa la yiraahdaa go'aanka maxkamadda meesha laga saaro kadibna go'aan wada hadal ah ay wada galaan. ogow oo xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya dhinaca badda ah hadda ayaa la jideeyay waana xuduud cusub oo ay markaa loo jideeyay oo maxkamadda cadaaladda adduunka ay u dileysay oo ah maxkamadda qaramada midoobay hoos tagta isla markaasna awoodda u leh. waxaan ka warsugi doonaa Soomaaliya iyo sida ay arrinta kaga soo jawaabto iyo wixii warar ku soo kordha waan idinla wadaagi doonaa marka ugu horreysay aan xaalada ay soo gaareen. aad baa u mahadsan daawashadiina. haddii aad ugu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo subscribe noo sar channelka. haddii aad nolol sii joogtayna aad baad u mahadsan tahay. kaaga celinayna waqtigaaga mar walba qaybaha hoose ee commentiga fikirkaaga noogu soo gudbi waana soo xigan doonaa fikradahaaga. aad baad u mahadsantihiin. tan iyo kulan baa idin kaga tagay sida nabadgelyo nabadgelyo nolol kulantay yamaan Allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.